أنا أقول مراي waxay la tahay hadal taradii iyo tiyadii wuxuu tar lahaaba waa la isdaba taxay laakiin saaco kala hemi la kala haram maahan markii aan arkay dadka caawsi u faraxsan yihiin wadaniyada qeyrada macnaha walaaltinimada ku wada jirta waxa igu soo dhacday sheeko yar oo ah waxa la yiri nin hadda ka hor xorow ahaa ayaa maaragtay cid ay qaraabo yihiin u yimid dhowr bari la joogay marka maalmihii ugu horeeyay waxa la yiri wax cid hoos ka reeb tabareed ahayd bariiskiisa yarka ay wixii yar la siinayay markii dambe habeenkii dambe jimcadii la gaaray habeenkii jimcadana waxa la yiri islaanta reerka ama hooyada reerka maarta sab yar iyo albar yar iyo waxa iskaga tuurata ninkii alaab uu san aqoon loo keenay hilib shiilan iyo bariis iyo alaab iyo wixii urcaawo sidee wax u jiraan waxa la yiri waa jimco marka wixii inta xagga ula sii jeestay ilaahu habeen walba jimco nooga dhig marka caawo markaan arkay wadaniyada iyo qeyrada nagu jirta iyo calanka buluuga aan wada calaamada kala yararka aan ka soo tagnay waxaan leeyahay ilaahay oo maalin kasta kooda luuliya nooga dhig intaas kadib waxaan rabaa maanse yar oo la yiraahdo gobonnimo inaan maartay idin la wadaago anoo aad ugu mahadcelinahay saaxiibaday iyo macallimiintayda gobonnimo waxay ka hadlaysaa gobonnimada iyo qiimaha ay leedahay iyo ummadda Soomaaliyeed sida gumaysiga uga dhiidiyeen ay u yihiin macnaha dad aan marnaba gumaysiga u dulqaadan waxay ku bilaabanaysaa gobonnimo inay guri lagu nastiyo geed nabadi taal gundhiga ay u tahay geesiga muriye gumaysiga nin nacab ayuun baa garto guushana hantee gumaysiga ninkii garab mooday iyo gunmiyuu marnaba maankeedu garan gobonnimo u dood gobonnimo darteed ummadaan guntan gelin dhexe habeen ka gilgilan xumaan gogoshana ka kicin iyo gama dheer guul iyo inay gobonnimo hantaan waa gabal dhiciye gelinkoo gudbo godka baasha dhigay haya sheegad kare garaadkayga hadal garashiyo gujoog guuluhu intuu galad iiga dhigay gabay iyo baray geeraar gudboon godka loogu tago balan soo gudbiyo gumaysigu markuu gayigeena yimid guud ahaan qabsaday go'aankuu lahaa inta uusan gudan Soomaalida gobta garashada taqaan guulana ku xiran geeskana ku nool gardarrada nacayb gumaysiga la dirir gobonnimo darteed soortay gurteen gumuc iyo rasaas gaaleef qarsoon gumaysaha la dhacay go'aankana ku yiri gayigaan ma lada gardarrada ninkii gogol moodaye ama guur hadeer ama geeriyo adiga gafkiyo geediga ku yimid gardarrada ninkii guri moodaye intuu gaasasray guri kale ku furay guul maba hantee markuu geeridii iyo gowricii hubsaday sawtuu gurtee gelin dhexe habeen geeshkiisa raray go'aankana ku yiri waan guureeyay gobay garasho wacan 60kii gadaas gobonnimiye sharaf guushaan hantii gumaystaha ka dhigay maalintii gobtiye gelinkii wacnaa sanad guuradii galabtay tahee calankeena gaar guudkeena sura gibladana u tuma aan galalacad iyo gaara waclaha galbis iyo ciyaar farxad gaardineen afartaagadii aanu soo gudbiyay nin garaadle iyo gurbood iyo dhalaan gabanka iyo barbaar guurti iyo waxgarad gidigood dadkaba way garanayaan gobonnimo inay guul sharaf la tahay masna gacalayaal gacmo wada jira guul iyo midnimo lagu gaarayo qaran lagu guntay hadii gaabis galo oo gobolba gobol uu ka go'aa mid kale go'i waayay waa guul dariye gaalkii mar kale inuu soo gurtay inta goori goorgayigeen uu noo gaar yaho geeska aynu naal gacal wada dhasho guri wada degiye inaan nahay gayaan aan kala go'ayn Soomaaliya garto gidigiin mar kale gacmaha isqabsada aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin markaana waxaan ku soo dhaweynayaa lajankeena weyn Cabdullaahi Sheekh Axmed Carafaad may anigu waxaan ku raaxaystaa qumaati dhagaha ugu raariciyaa